Kusoo dhawaada saaxiibayaal barnaamijkeennii ciyaaraha halka kala socotaan waa jenigeennii Cawaalo Official Channel. Xiddiga kooxda Brighton Benzema oo xabsi la dhigay maxaa sababay? Xiddiga reer England ee Tammy Abraham oo qirtay inuu ka tago horyaalka Premier League maxaa sababay inuu xagga iyo Talyaaniga aado? Xiddiga Argentina Lionel Messi ayaa la weydiiyey miyaad go-aanka Paris ugu biirtay miyuu qaldanaa mise wuu saxsanaa, isaga ayaa inooga jawaabaya. Waa kuma mucjisada da'da yar oo soo baxday waddanka Spain? Iskoorkii guuldarro la'aanta ee xulka Talyaaniga oo la soo gabagabay kadib markii xalay xulka Spain ay ku reebtay semi-finalka UEFA Nations League. Wararkan oo faahfaahsan la socod wanaagsan saaxiibayaal. Xiddiga kooxda Brighton Benzema oo ka tinadeysan ayaa xalay fiidkii loo dhaadhiciyay saldhigga booliiska ee lagu xidhay iyadoo loo haysto dambiyo culus oo halis gelin kara mustaqbalkiisa ciyaareed, sababtuna noqon kara inuu galo xabsi muddo dheer ah. Laacibkan khadka dhexe ee Benzema ayaa da'diisu tahay 25 jir, isagoo katiinada gacanta kaga xidhan waxaa booliisku geeyay saldhigga iyada oo weliba sawirro laga qaaday isagoo gacanta kaga xidhan yahay sarkaal booliiska. Benzema ayaa u baxay caweys bannaanka, waxaana ka soo raacday ceeb iyo fadeexad ay u dheer tahay xabsi dambi culus. Weeraryahanka reer England Tammy Abraham ayaa qirtay inuu ku adkaaday inuu ka tago horyaalka Premier League iyo kooxdiisa caruurnimadiisii ee Chelsea, laakiin wuxuu xaqiijiyay in Jose Mourinho uu ahaa shaqsigii ku qanciyay inuu ka tago go'aankaas kuna biiro kooxda Roma. Abraham ayaa Roma u dhaliyay 4 gool iyo 10 ciyaarood gudahood, isagoo birta garaacay 6 jeer, iyo marka ay kooxdiisa Talyaaniga ayaa ku iibsaday 34 milyan oo ginni xagaagan. Waxay noqotay inuu garbahayga furo inaan sameeyo doorasho. Waxaan xushay Talyaaniga, waxaana u xusay in haystay doorashooyin kale oo aan ahayn Talyaaniga. Waxaana yidhi sida Tammy Abraham, waxaan haystay doorashooyin kala duwan oo kooxo tiro badan oo aan la hadlayay waqtigaas. Talyaaniga aniga waxa aan u imi waxa ahayd Jose Mourinho. Xiddiga reer Argentina Lionel Messi ayaa wareysi uu bixiyay waxa uu kaga hadlay go'aankiisa uu ku tegay waddanka Faransiiska oo uu ku soo biiray Paris Saint-Germain kadib markii Barcelona lagu wargeliyay inaan qandaraas cusub la siinin. Wargeyska France Football ayaa wareysi la yeeshay Lionel Messi waxaa lagu weydiiyay haddii uu dhibaato ka dareemayo Faransiiska iyo arrinta kale haddii uu ka dareemayo inuu qalad sameeyay markii uu doortay kooxda PSG, xilli ay kooxo kale sida Man City ay doonayeen saxiixiisa. Isaga ayaa ka jawaabay su'aasha yidhi maya, qalad kuma aanan samayn tegitaanka aan tegay PSG. Wareysigan oo la daabici doono maalinimada Sabtida soo socota. Xulka qaranka Spain ayaa iska xaadiray finalka tartanka UEFA Nations League kadib markii ay 2-0 ku garaaceen 10 ciyaartoy Talyaaniga, isla markaana ay soo afjareen rikoorkii guuldarro la'aanta ee Italy. 2 gool qaybtii hore oo u dhaliyay Ferran Torres ayaa Spain ka caawiyay in waqti horeba xaqiijisay inay u gudbaan finalka ay la ciyaari doonaan Faransiiska iyo Belgium kooda caawa ciyaarta wada ciyaaraya midkood soo gudba. Xiddiga da'da yar ee Gavi ayaa rikoor cusub dhigay xulka qaranka Spain kadib markii uu ku soo bilowday kulankii semi-finalka Nations League ee Talyaaniga. Laacibkan ayaa noqday ciyaartoygii ugu da'da yar ee abid u saftay xulka qaranka Spain. Gavi oo da'diisu tahay 17 sannadood iyo 62 maalmood ayaa qaadanaya waqti cajiib ah, isagoo si lama filaan ah lagu soo daray xulka kadib markii dhowr ciyaarood u saftay kooxdiisa koowaad ee Barcelona, isla markaana xilli ciyaareedkan ka soo dallacay heerka labaad ee kooxda.
Gavi ayaa jebiyey rikoodhkii Ansu Fati oo hore u ahaa ciyaartoygii labaad ee ugu da'da yaraa ee Spain u saftay, kaasoo rikoodhkaasi galay haystay 17 sannadood iyo 308 maalmood. Kulanka caawa iska hor imanaya xulalka Belgium iyo France, kuwaasoo ku wada ciyaaraya afar-dhamaadka labaad ee tartankan. Qaabka loo ciyaaro National League waxa uu u qaab eegayay qaabka horyaalada loo ciyaaro ee guruubyada, ayaa marxaladii gabagabada dib-u-dhac ku yimid kadib sababihii coronavirus ee tartanka Euro 2020 waqtigiisii qaatay maadaama uu hal sano dib u dhacay. Si kastaba ha ahaatee, xulka qaranka Belgium ayaa kaalinta koowaad kaga soo baxay gruupka labaad ee Group A, kaasoo kula jira xulalka Denmark, England iyo Iceland, halka xulka France ka soo baxay gruupka saddexaad kaasoo kula jira xulalka Portugal, Croatia iyo Sweden. Haddaba caawa waxaa fooda isku daraya magaalada Turin, xulalka Belgium iyo France oo midkooda adkaada wajihi doona Spain oo ciyaartii final ka dhici doona toddobaadka soo socda toddobaadka xiga horraantiisa. Barnaamijkeennii ciyaaruhu intaas ayuu nugege. Asxaabta nagu cusub subscribe noo saara. Asxaabtii hore nala joogna fadlan like, share, nagu dira. Mahadsanidin.